kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa dhambalka dunida ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka galabnimo waa galabnimo isniina taariikhda ayaa ku astaysan 30 bisha September sanadka 2024 qodobada xiisaha leh barnaamijkana galabta aad ku soo qaadan doona waxa qayb ka noqon doona fadhiga golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kormeer baaqday iyo hanjabaad cusub oo loo jeediyay xildhibaanada aan soo xaadirin fadhiga golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya hadaba maxaa soo celceliya kormeerlaanta u baaqda baarlamaanka Soomaaliya warbixin ayaana daawadayaal kaga haynaa qodobada kale barnaamijkana falanqaynta wararka galabnimo aan ku soo qaadan doona waxa qayb ka noqon doona ninka tirsan ururka al-shabaab isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku warahan kuwa ku sugan masaajidda Cali Gaduud sidoo kale maleeshiyaadka fara badan oo ka soo qulqulaya ururka al-shabaab ayagoo isku soo dhiibaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed warbixin ayaana daawadana iyadana kaga haynaa qodobada kale barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa qayb ka noqon doona xildhibaan Maxamed Abiyo kamid ah xildhibaanada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa xorriyadiisa dib u helay kadib bila oo xabsiga madheere ku xirnaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa daawada ku maqli doontaan barnaamijkeena inta hawada ku jiro soo saarista dibinta waaniga daahir Abshir Xasan fadlan YouTube-kana aad ku cusubtahay dhambalka dunida subscribe saar sidoo kale page-keena Facebook Leaderman iyo sidoo kale baraheena bulshada sida X Instagram iyo sidoo kale bartana TikTok u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas ama qashan oo faahfaahsan وهاجاك داود يلا اسكسون نقدنا وأكثر مركلة عن كل لابن برامج كنا فلاقيت ورك قلبني به فدق قلها الشعب كبرلمان كالصومالية أيام مانتي كورملانو باغضي كدمرك حلبان نفر بدن وكتر سنة قلها الشعب كبرلمان كالصومالية أي سو حاضر وياين مركز فلية ذيك الدوان برلمان كالصومالية قدام يكو حجان كاللباد برلمان كالصومالية عبد الله عمر أبشرو أيا هنشبات كل الوجودية حلبان هذا أنسو حاضر قلها الشعب كبرلمان كالصومالية وحنا شيء إن بش صوص عتادي سو حاضر وياين حلبان هذا مقنا أي مركز المشاركة كجوز دونان فلية ذيك الدوان برلمان كالصومالية أي هذه الشيء بغداد كورم لان waxaana taas loo sameeyay xildhibaanada qaar oo mucaarada isla markaana wada mooshiin kala duwan oo ay doonayeen inay kaga hortagaan isla markaana ay doonayeen inay kaga hortagaan xukuumadda iminka jirta oo majara u hayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale wasiirada qaar kamid ah ay mooshin ka wadaan sidoo kale waxyaalaha loo aameeyay in safurmin fadhiyada kala duwan ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa kamid ah xildhibaanada qaar oo ku maqan dalka dibadiisa ayagoona wadanka ba joogin halka qaarkoodna ay iska joogaan hoteelada iyo sidoo kale guryaha ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho ayagoona aan haba yaratay soo xaadirin fadhiyada ka duwan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya taasina waxay dhabarjab ku tahay dadka soo doortay isla markaana ay matalayaan waxaana xusid mudan in baarlamaanka Soomaaliya inuu ala xildhibaan bishaarahan u qaato $5,000 ka badan $5,000 iyo sidoo kale gunooyin intaas ay u sii dheertay iyadana shacabka Soomaaliyeed oo dhaqaalaha la daala dhacayana laga qaado canshuurta markaas mushaaraadka laga baxsho halka askariga Soomaaliyeed oo asagoo furinta jooga isla markaana cadigu daafacayo oo dhiigisa u horaayana uu qaatay mushaar $200 iyo wixii ka sii yar taasina runtii ummadda Soomaaliyeed aad u cuntay wada in xildhibaan dhan oo deegaan laga soo doortay isla markaana waajibaadka duwan qarankiisa uu ka sugayo in uu isla markaana soo xaadir weeyo fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed aad ay arintaas uga biyadiideen waxaana la filayaa in xildhibaanada qaar hadii soo xaadir waayaan fadhiyada kala duwan baarlamaanka Soomaaliya bisha soo socota sida gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya uu shaaciyay mushaarka laga gooy doono isla markaana ganaaxyo kala duwan ay la kulmi doonaan waa tahay daawadayaal bal markana haddaynu eegno ninka tirsan ururka al-shabaab muddo far badan ka barbar dagaalamaya isku soo dhibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan masaajidda Cali Gaduud ninkan oo muddo far badan ka tirsanaa ilaa 15 sano ugu dambeeyay ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta isku soo dhibay ninkan waxa uu sheegay in isku soo dhibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markuu u adkeysan waayay weerarada aan kala joogsiga ilaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayaan fariisimaha ay ku leeyeen ururka al-shabaab meelaha kala duwan ee kaga sugayaan gobolada dalka waxaana sheegay sidoo kale in rafaad far badan uu kala kulmay xilliga inta uu ku sugnaa isla markaana uu la joogay ururka al-shabaab inuu markaas dhibaatooyin fara badan uu la kulmay isla markaana uu adkeysan waayay rafaadka iyo sidoo kale dhibaatooyinka faraha badan oo markaas soo wajahay xagga nafsiyan iyo sidoo kale xagga caqiidahaanba uu adkeysan waayay kadib markuu arkay inay dhibaatooyin fara badan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana cid u arxamayaan aysan jirin isla markaana damirkiisu soo qaaday waayay kadibna uu go'aansaday inuu isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ururka al-shabaab iyo maleeshiyada ka barbar dagaalamay maalmihii ugu dambeeyay waxa jiray kuwa far badan oo ka tirsan oo ayagoon isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoona markaas horin iyo hal intaba uga soo goosanaya isla markaana doonaya markaas in isku soo dhibin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana iskaga soo baxaan mugdiga madow iyo sidoo kale gacan ku dhiglayaasha
xeradooda ay ku jiraan ay ka soo baxaan isla markaana ay dadkooda iyo dalkooda ay dhinac ka soo galaan markaasna ay ka badbaadaan weerarka xooggan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayaan waxaana askarta iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadii jeer ka go'aan in ay xoreeyaan dhammaan bangiga Soomaaliyeed ee ururka al-shabaab iyo sidoo kale meelaha ay kaga sugan yihiin ilaa wadanka Soomaaliyeed dhan markaas abna ay ka dhigayaan وحقاقي بل ugu dambeyntii hadaan eegno xildhibaan Maxamed Abid oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka ee wakiilada Soomaaliland oo muddadii ugu dambeysay ama muddo bilaab ka xirnaa xabsiga Mandheere ee Soomaaliland ku yaala ayaa maanta xorriyadiisa dib u helay kadib markii maxkamadda sare ee Soomaaliland ay xukuntay in xildhibaankan uu si sharci darro ku xiran isla markaana ay waajib tahay in markaas xorriyadiisa dib loo siiyo xildhibaan Maxamed Abid ayaa bil ka hor laga xiray magaalada Hargeysa xilli uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xilligaas uu ka yimid magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta xildhibaankan oo dhaliilo fara badan u jeedin jiray xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa markii dambe sababtay in xabsiga loo taxaabo waxaana arintaas ka biyadiiday xisbiga mucaaradka ee wadani ayagoona ku tilmaamay xabsiga ayagoona markaas ku tilmaamay xariga Maxamed Abid loo geystay inuu yahay mid sharci darro isla markaana ay tahay mid aan sharciga haba yartaa mid meel ka waafaqsan guud ahaan baa wanaga tasdaawadayaal barnaamijkeeni falanqaynta wararka galabnimo waad ku maasantihiin daawashadeena fadlan haddii aad ku cusubtahay youtube-kana dhambalka dunida subscribe saaran sidoo kale page-keena Facebook Leaderman soo follow garee siina share garee asxaabtadana la wadaag sidoo kale barahna bulshada sida X Instagram iyo sidoo kale barteena TikTok ayaa sidoo kale naga daawan kartaan meel kasta oo joogtaan daawadayaal waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh